bismillaahi raxmaani raxiim. Halkani waa xogbaahiyaha ciyaaraha. Barnaamijkeena galabta waxaan xoog ku saari doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo saacadaha inagu soo aadan ku dhawaaqi doonta macalinkeeda cusub. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe iyo like saar, asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanid. ayna ku bilaabnay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa saacadaha soo socda ku dhawaaqi doonta si la yaab leh in ay shaqadeeda tababarnimo ay ugu soo celisay macalinkoodii hore ee Carlo Ancelotti ka oo haatan layliya kooxda Everton ee wadanka Ingiriiska. macalinka reer Talyaani ayaa mar kale hogaamin doona kooxda reer Spain waxaana shaqadani uu ka bedelayaa macalinkii hore ee Zinedine Zidane. macalinka reer Talyaani ayaa horey kooxda Madrid u hogaamiyay intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2015 isagoo ku hogaamiyay ku guuleysashadoodii koobkii 10aad ee Champions League xilli ay ka badiyeen ciyaarta finalka naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Atletico Madrid. macalinkan 61 jirka ah ayaa markiisii labaad ka soo muuqan doona gegada Santiago Bernabeu. jariirada Spain ka soo baxda ee Marca ayaa xaqiijisay in macalinka kooxda Everton uu noqday midka loo doortay inuu sanadaha soo socda hogaamiyo kooxda cadcad isla markaana waqti dhow lagu dhawaaqi doono saxiixiisa. Ancelotti iyo Real ayaa lahaa xiriir wanaagsan waxaana madaxweynaha kooxda Florentino Perez iyo maamulka sare ee naadiga ay horey ugu sheegeen in ninka reer Talyaani in albaabada naadiga aysan marnaba ka xirneen waana sababta ay sida dhaqsada ah u gaareen is-afgarad. haddii la xaqiijiyo magacaabista tababare Ancelotti waxa ay taas ka dhignaan doontaa in jagada naadiga Everton uu isaga hayaami doono kaliya hal san iyo bar oo uu ku sugnaa garoonka Goodison Park. Everton ayaa ku dhameysatay kaalinta 12aad ee kala sareynta horyaalka Ingiriiska. waxa uu ahaa xilli ciyaareed si xun ugu dhamaaday Everton waxayna ka mid ahayd kooxaha loo saadaalinayay in ay geli karaan boosas Yurub loogu soo baxo. waxa uu kula jiray kooxda reer England heshiis ku eg ilaa 2024 laakiin xiriirkaas ayaa u muuqda mid waqti hore soo gabagaboobay iyadoo macalin Ancelotti uu shaqada Real u arko mid xiiso badan leh sanadkan. kadib iscasilaadii Zinedine Zidane ee isbuucii la soo dhaafay kooxda Real ayaa diyaarisay liis ay ku jiraan macallimiin dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen macalinkii hore ee kooxda Tottenham haatan leeliya PSG ee Pochettino oo la sheegay inuu doonayo inuu isaga hayaamo naadiga reer Faransa. Antonio Conte oo isaga hayaamo waqti hore kooxda Inter, laacibkoodii hore ee qadka dhexe ee Xavi Alonso oo haatan hogaamiyay kooxda labaad ee naadiga Real Sociedad iyo halyeegooda Raul oo haatan ku sugan kooxda Real Madrid. balse wada hadallada Ancelotti ee loogu soo celinayay shaqada Madrid ayaa xoogeystay isbuuciina soo gudbay waxaana shaqadii uu labadii xil ciyaareed ee uu joogay naadiga qabtay ay u saamaxday in 75% ragga go'aanka gaaray isku raacaan in lagu soo celiyo garoonka Bernabeu. magacaabista Ancelotti ayaa dadka qaar u fasiranayaan in madaxweynaha Madrid uu u argoosanayo macalinkiisii hore ee Zidane oo warqad maamulka naadiga uu ku cambeeranayo la wadaagay taageerayaasha Real Madrid. dhankaasi suuqa kala iibsiga haddii aynu eegnana qadkii dhexe ee kooxda Juventus Milan Pjanic ayaa mar kale la saadaalinayaa inuu dib ugu laaban doono naadiga marwada duqda ah ee Talyaaniga isagoo oo xiriir fiican la leh tababaraha cusub ee Juventus Massimiliano Allegri. ciyaaryahankan ayaa ku qaatay kooxda Barcelona xilli ciyaareed aad u qaraara waxa uuna kaliya ku bilaabay 6 ciyaarood waxaana ku fadhiyaa qiimo gaaraysa ilaa 55 milyan. isla Barcelona xidiga reer France ee Ousmane Dembele ayaa la qiimeynayaa in la siiyo heshiis gaaraya 4 sano laakiin ciyaaryahankan ayaana aqbali karin heshiiska Barcelona iyadoo kooxda ay dhaqaale xumo haysato ayaa la sheegayaa in heshiiska ay u soo bandhigayaan uusan la mid noqon doonin midka uu filayo. kooxda Arsenalna waxaa ka lumay fursad ay ku saxiixan lahayd goolhayaha kooxda Brentford waa David Raya iyadoo kooxda reer England ay u soo gudubto horyaalka Premier League taasoo micnaheedu yahay in lacagtii ku jirtay heshiiskiisa in lagu la wareegi karo 10 milyan uu baaba'ay waxayna kooxda reer England ay ku khasbanaan doontaa in ay la heshiiso Brentford haddii ay doonayso hayaheeda David Raya. macalinka Chelsea ayaa loo ballan qaaday lacag dhan 200 milyan isagoo oo 3 ciyaartooy doonaya inuu ku soo kordhiyo kooxdiisa.
ninka iska leh Chelsea ayaa kulan la qaatay subaxii ka dambeeyay finalka Champions League macalinka reer Jarmal waxa uuna u sheegay inuu garab taagan yahay una siin doono qiimo dhan 200 milyan. macalinka reer Jarmal ayaa la sheegayaa in uu doonayo 3 ciyaaryahan inuu ku soo daro naadiga waxaana magacyada haatan soo baxaya ay kala yihiin labada weeraryahan kala ah Haaland iyo Lukaku iyo qadka dhexe West Ham Declan Rice. kooxda Milan waxay ku dhowdahay inay heshiis rasmi ah ay Chelsea la gaarto iyadoo doonaysa inay si toos ah ula wareegto daafaca reer England ee Tomori oo hal sano amaah ku qaatay kooxda kubadda cagta ee AC Milan. kooxda reer England ee Norwich City waxay Arsenal iyo Everton ku wargelisay qiimaha ay ku doonayso xidigooda reer Argentina Buendia. naadigan ayaa sheegay inaysan aqbali doonin wax ka yar 30 milyan oo euro. xidiga reer Argentina ayaa la xiriirinayay 2 sano la soo dhaafay naadiga Arsenal waxaana warar maalmihii dambe soo baxay ay sheegayaan in ciyaaryahanka uu diyaar u yahay inuu ku biiro naadiga ka dhisan Emirates. لاعبكي هوري تشيلسي إيدن هازارد waxa uu beeniyay wararka la xiriirinaya in naadigiisa hore Chelsea uu ku laaban doono. لاعبka reer Belgium ayaa sheegay in weli ay wax uga dhiman yihiin garoonka Bernabeu una doonayay inuu qiimihiisa halkaas ku muujiyo. kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa ay u soo bandhigi doontaa sida la sheegayo kooxda Tottenham لاعبinteeda Sterling iyo Jesus oo la raaciyay lacag si ay u hesho weeraryahanka reer England ee Harry Kane. kooxda Tottenham ayaa doonaysa in lacag cash ay ku bedelato xidigeeda Harry Kane. qadka dhexe Arsenal iyo kabtanka xulka Switzerland ee Granit Xhaka waxa uu soo dhaweeyay hadalka ka soo yeeray macalinka cusub ee Roma ee Jose Mourinho kaas oo sheegay in ciyaaryahankaas uu doonayay inuu la shaqeeyo waxaana xidigan maalmahan la xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono naadiga Rome ee wadankaas Talyaaniga. kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa ay qiimo dhan 30 milyan oo euro ay ka gudbisay xidiga reer Brazil ee kooxda Ladies Rafinha waxaana macalinka Liverpool uu doonayaa inuu adkeeyo xagaagan xooga weerarkiisa waxaana sanadkii hore uu ku soo saacidiyay xidigii ay kala soo wareegeen Wolves ee Diego Jota. kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa la sheegayaa in ay Barcelona kala wareegi karto qadka dhexe reer Spain ee Basket waxaana macquul ah in si bilaash ah ay ku helaan ciyaaryahankan khibradda leh. kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay ku dhibaatoonaysaa qancinta daafaceeda reer Jarmal ee Rudiger kaasoo ka diidan inuu saxiixo wax heshiis cusub. naadigan Chelsea ayaa 4 bilood ka hor doonaysa in ciyaaryahankan iska iibiso laakiin bandhigyadiisa u dambeeyay ayaa kooxda ku kalifay inay go'aankeeda bedesho balse ciyaaryahanka ayaa ku adkeysanaya inuu doonayo inuu ka tago naadiga reer England. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa ku dhow saxiixa daafaca midig ee naadiga Inter Ashraf Hakimi. kooxda Inter ayaa ku rabtay ciyaaryahankan 60 milyan oo euro laakiin kooxda PSG ayaa la sheegayaa inay u baahan tahay inay iibiso ciyaartoy si uu la wareegto ciyaaryahankani. kooxaha Bayern Munich iyo Chelsea ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkan kula jiraan laakiin naadiga reer Faransa ayaa hogaaminaysa xilida saxiixa xidiga reer Morocco. barnaamijkeeni maantana intaas ayuu inoogu egyahay. fadlan like iyo subscribe saar lana wadaag asxaabtaada. mahadsanidin.